dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ayaa saaga galinkii hore ka qarxay degmada Tukaraq ee gobolka Sool kaasi oo Soomaaliland u suurta gashay inay gudaha u galaan degmada Tukaraq oo halkaas uu yaalay kastama ay cashuuraha ku qaadaan dawladda Puntland lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama ay wali soo fadhiyaan labada ciidan walow dhawaqa rasaasta laga maqlayo degmada Tukaraq iyo geeda gudoomiyaha gobolka Sool ugu magacaaban Puntland oo aan khadka taleefanka kula xiriiray wuxuu ii sheegay inay gubeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliland sidoo kalena ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanka Godqaboobe oo Tukaraq u jira 15 kiiloomitir wuxuuna wareyska gudoomiyuhu u dhacay sida tan kan waxa weeye waa ka faa'iideysan doonaa nimankan dardarada ku soo doonteen meeshan waana qabsan doonaa laafcaano waxaan noo sheegtay dhankiina wax khasaara ma jiraan oo noo iyaga qudhooda waxa sheegtay in khasaara soo gaarsiin oo laba gaari ay ka gubteen labada gaarina gubteen maxaa noo xaqiijinaysaa labada gaari waxa sheegay inta badan dadkii ay baaqeen baaqeenka baaqeen sheegay inay laba gaari ka gubteen daawac fara badan la gudbiyay oo daawac fara badan la soo gaaray magaalada sheegay oo dawlad ku kala qasabada marka ciidankiinu meesha dagaalku ka dhacay rasmiga ay labada ciidan ay isaga hor yimaadeen waa xagee waa Tukaraq waa sida meesha ciidan daranta dagaal deganaayo weeye ciidan Puntland meesha deganaayo waa gartay marka hadda iyaga gacanta ku haya degmada Tukaraq oo halkaas fadhiisinayay ay ka sanad ku haydeen Tukaraq yeeda sidii hadda waxa weeye ay gacanta ku hayaan waxay joogaan laakiin magaalada gudaheeda waxa sheegeen dadku in tiknikooda dhex marayso in ciidamadoodu ay joogaan magaalada gudaheeda waa xilla ciidamada la joogaan wax ciidamada la joogaan meel xoogaa u jirta meel u joogaan nimankan Soomaaliland waxaa tiri waxay noo fursad noo siinaysaa weerarkan lagu soo qaaday in aan laafcaanood qabsano marka ma waxaad leedihiin Puntland baa laafcaanood soo weeraraysaa Puntland waa la wareegi doontaa laafcaanood waa gartay sababana waa ka faa'iideysan doontaa maanta arrintan weerarkan maanta la isku soo qaaday idinku hore ma ogeedeen in deegaanka uu ka socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama weerar la isku soo qaadayo لكن أنا قلت بدل بالحمد لله يوم يقدر مرة بالعادة وأنت مسؤول منها. بدون واحد. خروج الطريق. عندنا يريد ولا كسيعة. بدون gudoomiye waxa jirtay in idinkiis Puntland Soomaaliland iyo Puntland heshiis ka dhaxeeyay xadkuna idiyaha meesha la yiraahdo Tukaraq labadina ciidan idinkuna Tukaraq joogtay iyaguna ay ka sokeeyay maxaa iska bedelay heshiiskaas Tukaraq ma hayre wuxuu ahaa meesha la yiraahdo xoog iyo xadkiisu gudoomiye noo sheegtay in uusan meesha la yiraahdo Tukaraq dagaal ka dhicin saasna ay ku qabsadeen ciidamada booliska idin joogeen Tukaraq waxaan ku diiday sheegay inna waxa weeye hareeraha ka soo mareen wiilkana wada hadin waa gartay meeshii ciidanka sabiyan bay soo weerareen baan ku yiri inna waxa weeye xoog bay kala kulmeen iyaguna khasaare gaaray dawladda dib ay meeshoodii ugu noqdeen ciidamada Puntland xagee u yahay fadhiisikooda iyagu hadda ciidamada Puntland hadda fadhiisikooda waa fadhiisinka waa gartay marka maadaama hadda Tukaraq iyo aagiidu ciidamada Soomaaliland ay ku sugayeen idinku talabada qaadaysa maxay tahay labada qaadana ku sheegay waxa kan aan ku faa'iideysan xaalada ugu qabsan waa gartay dadka caddaanka ay soo qaadeen magaalada hadda ugu dhigmaadiyay dhanka Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Sool oo aan la hadlay waxa uu sheegay ka qabsadeen ciidamada Soomaaliland walow uu sheegay in aysan kala kulmin wax iska cabina muqtar abdi jaamac wararka warbaahinta SBC la saacado markii saacadii laga soo gudbay ay soo bixeen warar sheegaya in dagaal u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland uu ka dhacay deegaanka gobolka Sool ayaa waxa arintaasi markii ugu horeysay ka hadlay wasiirka warfaafinta Anafeenka xukuumadda Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isagoona tilmaamay inay jiraan dantaasi inta badan soo noqnoqonaya oo ka imanaya deegaanka Soomaaliland dariska la ee Puntland waxaan ugu baaqay in walaaltinimada iyo sidoo kale xiriirka soo jireenka iyo xuduudka labada wadan waa sida hadalkiisa u dhigay xukuumadda Soomaaliland ka go'an tahay in la sii xoojiyo isla markaana la sii kobciyo xabariyahan loo dheg taagay
حالة بكتاجن حدود أو دحيس الصومالية iyo Somaliland sida alla socotaan bariyahan waxa ay dawladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somaliland tusaale ahaan magaalada la yiraahdo Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac garaad cali waxaa kale magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamada ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ah ku tageen magaalada Badhan iyo magaalada Dhahar ayagoo halka ka jeediyay khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaas awgeed dawladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dul qaadan mar dambe xaaladaha caynkaas waxa ay ku wargelinaysaa dawladaha deriska ee geeska Afrika in ay Somaliland tahay dawlad ku aanbaxday nabadgelyada iyo xasilooni ku wada noolaanshaha hayeeshee hadda waxaad moodaa in ay soo gabagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dawladda Somaliland muujinaysay dadweynaha reer Somaliland ciidamada qaranka dawlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dawladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Somaliland ee xaalad abuurka waxaanu ka codsanaynaa in ay ku waantoodo wada noolaashihii iyo isu socodkii iyo nabadgelyadii deegaanka asalka ah waxa kale oo ay aanu wargelinayna dawladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado laba xuduud dhexdooda ciidamada Somaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dawladaha deriska hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan mana dhici doonto in dib dambe safaraha looga laabto wasiirka warfidyeenadu weydiiyeen inay xilligan jiraan in dagaal ciidamada militariga ee ku sugan jiidda hore ay ku qaadeen ciidamo ka socda maamulka Puntland ayaa sidan ku jawaabay aan sheegay ciidanka Somaliland xuduudiisa ayuu ku sugan yahay waxaanu fadhigiisu yahay magaalada la yiraahdo Tukaraq sidaa daraadeed waxaanu cadeynaynaa in marnaba inaanay ciidamada Somaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijisay in dagaal halkaasi ka dhacay iyo in kale marka laga imaado dhawaaqa xukuumadda ee ku aadan daandaansiga ay ka deyriyeen in xilligan uu ka soconayo deegaanadaasi Faysal Maxamed Aadan Faysal TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ayaa saaka galinkii hore ka qarxay degmada Tukaraq ee gobolka Sool kaasi oo Somaliland u suurta gashay inay gudaha u galaan degmada Tukaraq oo halkaas uu yaalay kastaba ay cashuuraha ku qaadaan dawladda Puntland lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama ay weli soo fadhiyaan labada ciidan walow dhawaqa rasaasta laga maqlayo degmada Tukaraq iyo geeda gudoomiyaha gobolka Sool ee ugu magacaaban Puntland oo aan khadka taleefanka kula xiriiray wuxuu sheegay inay gubeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Somaliland sidoo kalena ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanka Godqaboobe oo Tukaraq u jira 15 kiiloomitir wuxuuna wareyska gudoomiyuhu u dhacay sida tan kan waxa weeye waa ka faa'iideysan doonaa nimanka dardarada ku soo doonteen meeshan waa qabsan doonaa laafcaanood waxaad noo sheegtay dhankiina wax khasaara ma jiraan oo noo iyaga qudhooda waxay sheegteen in khasaara soo gaarsiin oo laba gaari ay ka gubteen labada gaarina gubteen maxaad noo xaqiijinaysaa
labada gaari waxaa sheegaya inta badan dadkii ay magaalooyinka dhaafeen la sheegayo inay laba gaari ka gudbeen dhaawac fara badanna la gudbiyey oo dhaawac fara badan markay soo gaaray magaalooyinkaa sheegaya oo waxaa weye waxba kala qarsada dadka marka ciidankiinu meesha dagaalku ka dhacay rasmiga ay labada ciidan ay isaga hor yimaadeen waa xaggee waa fikra waxaa weye waa soo meesha ciidanka inta badan ay deganaayeen weeye ciidanka puntland meeshay deganaayeen waan gartay marka hadda iyaga gacanta ku haya degmada tukaraq oo halkaasi fadhiisanayay ahayd oo kastamad kula haydeen tukaraq gudaheeda hadda gacanta kula haya waxay joogaan joogaan oo iyaguna laakiinse magaalada gudaheeda waxay sheegeen dadku in tiknikadooda dhex marayso in ciidamadoodii ay joogaan magaalada gudaheeda waa cidla ciidana ma jirto wax ciidana ma joogaan meel xoogaa u jirtaa meel ubay joogaan nimankan somaliland waxaad tiri waxay fursad noo siinaysaa weerarkana laku soo qaaday in aanu laascaanood qabsano marka ma waxaad leedihiin puntland baa laascaanood soo weeraraysaa puntland waa la wareegi doontaa laascaanood waa gartay sadaana waa ka faa'iidaysan doontaa maanta arrintan weerarkan maanta laidinku soo qaaday idinku hore ma ogeedeen in deegaanka uu ka socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama weerar laidinku soo qaadayo ogyahay wax inta badan socda intii ogyahay laakiin anaga inta badan de waxaan sheegaya inta badan iyaguna mar walba lacaabaan intaan isulameynaa gudoomiye waxaa jirta horey qabsaday haddana weli duulaanka sii ah gudoomiye laga filayaa dadka soo barsanaysa haddana marka dambe iyaga inta badan basaaro ka dambeeya gudoomiye waxaa jirta in idinkiis puntland somaliland iyo puntland heshiis ka dhexeeyey xadkuna idin ahaa meesha la yidhahdo tukaraq labadiina ciidan idinkuna tukaraqa joogteen iyaguna ay ka sokeeye maxaa iska bedelay heshiiskaas tukaraq maahaene wuxuu ahaa meesha la yidhahdo xoog iyo xadkayagu gudoomiye noo sheegtay in uusan meesha tukaraq dagaal ka dhicin saasna ay ku qabsadeen ciidamo boolisna idiin joogeen tukaraq waxaa kuyidhi booliiskaas sheegay dabeedna waxa weye hareerahay kasoo marmareen booliiskuna lama hadlin waa gartay meeshii ciidanka sabiyan bay soo weerareen baan ku yidhi dabeedna waxa weye xoog bay kala kulmeen iyaguna khasaare gaaray dabeedna dib bay meeshoodii ugu noqdeen ciidamada puntland xaggee u yahay fadhiisinkooda iyagu hadda ciidamada puntland hadda fadhiisinkoodu waa fadhiisinka ay dib ay ugu celiyeen somaliland waa gartay marka maadaama hadda tukaraq iyo aagii hudloga ciidamadii somaliland ay ku sugayay idinku talabada qaadaysa maxay tahay talabadan qaadaysa waa ku sheegay waxaa kuleeyahay kankii aan kaga faa'iidaysan lahayn dhaqaale dib u qabsano waa gartay dakarada cadaanka ay soo qaadayna dee sababi doonta inaan magaalada hadda ugu dhigno haddii ay dhanka somaliland gudoomiyaha gobolka sool oo aan la hadlay waxa uu sheegay ka qabsadeen ciidamada somaliland walow uu sheegay in aysan kala kulmin wax iska cabina mukhtaar cabdi jaamac wararka warbaahinta SBC laascaanood